kulanti wanaagsan oo waxaan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan qodobada barnaamijkan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u qabtay dowladda dalka Mareykanka 48 saacadood gudahooda haddaysan hormuus ku furanin inuu cadaab ka waraabin doono markii koowaad iyo markii labaad midnaba ma ahan inuu Donald Trump sidan u hadlo waxaa la leeyahay waxa ka keenaya kulayl uu ka dareemayo saaxadda dagaalka culayska siyaasadeed ee haysta iyo kan dhaqaale intaba waxaynu eegi doonaa goodintiisu waxa ay daaran tahay wararkii ugu dambeeyay sirdoonka Mareykanka ka soo baxay lagu sheegay dowladda dalka Iran in ay haysato markaas boqolkiiba 50 agabkeedii war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda dalka Iran haatan waxa ay ku sheegeen in ay hub casri ay u isticmaaleen diyaaradihii labada ahaa ay shalay soo rideen Iran waxa uu qarsoon cid la socota aysan jirin ayagoo kaliya mooyaane askarigii tan iyo shalay talabaadi goobayay ayaa la la'yahay cirib iyo jaan raq iyo ruux meel uu ku maqan yahay ilaa iyo haatan ma la hayaa oo waa la qabsaday maya waa dhuumaalaysanaya maya waa geeriyooday arrimahaas ayaa saas loo rogrogayaa laakiin waxaa xaqiiqa ah in aan la haynin cirib iyo jaan meesha uu haatan uu ku maqan yahay xilliga barnaamijkan aynu duubayno taariikhdu daawadayaal waa 4 bisha afraad sanadka 2026 kusoo dhawaada barnaamijkeena fiidnimo waxaana barnaamijkan igala qayb qaadanaya qoraaga ahna markaas falanqeeyaha weynee siyaasadda caalamka dayib sheekh axmed oo dalka Mareykanka jooga dayib waa kusoo dhaweynaya cabdixaafid waa ku salaamaya subax wanaagsan dhinacayaga waa fiid wanaagsan annaga xaggeena aad baan kuusoo dhaweynayaa dayib marka ugu horreysa barlabadii saacadood ee u dambeysay wixii dhacayay iyo Donald Trump mar kale inuu 48 saac u qabtay dowladda dalka Iran inay hormuus ku furto asagoo aan ogeyn toddobaadkii hore wiig u qabtay waxba asagoo qabanin haddana 10 kale ugu daray oo 6 bishan hadda maanta 4 ku eg haatan 48 saac ayuu qabtay Donald Trump tibihiisu dhinacooda xiirmaan miyaa asaga cabdixaafidow subax wanaagsan mar labaad Donald Trump dhib baa haysata dhibtuna waxay ka haysataa dagaalkan dagaal uu qorshihiisa la garanayay maahan siduu maaragtay ku bilaabayna si maaragtay isaga laftigiisu uu aad uga fiirsaday maahayn ama dadkan la shaqaynaya si fiican oo maaragtay uga soo shaqeeyeen mashaakilka ugu badan oo jirana waxa weeye cabdixaafidow waxaa jira wax kelmad uu ninkii la dhihi jiray Donald Rumsfeld oo u ahaan jiray ninkii la dhihi jiray Bush uu ahaa wasiirka gaashaandhigga markuu Ciraaq ay weerarayeen oo isticmaalay oo la yiraahdo waxaa jira adduunka waxay dhahaan known unknown iyo known iyo unknown marka known unknown waxa weeye wax aad taqaanin laakiin aadan aqoonin tusaale ahaan haddaad maqashay Beijing ama aad maqashay meesha la yiraahdo magaalo adduun qofku dee wuu maqlay laakiin in hadduusa taginin ma yaqaano siday u taalla iyo siday tahay wadooyinkeedu siday yihiin iyo unknowna waxa weeye waxaadan aqoonin knowna waa waxaad taqaanid cabdixaafid waa taqaanaa waadna taqaanaa marka Mareykanku meeshaan uga socdo waxa weeye iyo Donald Trump unknown waxaabaa ku dhacay Iran way maqleen laakiin aqoonu ma lahayn assessmentiga ay sameeyeen ama baaritaanka ay sameeyeenna waxay u badan tahay ciidamada qolyaha sirdoonka ah oo waddankan 17 baa la yaqaanaa inay ka badan yihiin waa loo malaynayaa 17kooduba assessmentiga ay sameeyeen wuxuu ahaa 1 horta Iran khatar waddanka kuma aha Mareykanka 2 haddaynu la dagaalano waa kama guulaysanayno 3 xulufa la'aan yani kuma aadi karo haddaynu xulufa la'aan ku aadno oo kaligeen aynu aadno waa soo jabayna marka cabdixaafidow waxaad moodaa iyadoo faktaradaas la eegayo ama waxyaalahaas caddaymaha la eegayo Trump arrintaa wuu sakhirtay ama ha lagu qasbo oo sida dadka hadda u badinayaan inuusan raalli ka ahayn bay u badan tahay laakiin lagu khasbay ama asagu ha fududaysto oo arrintii Venezuela markii uu arkay hay is yiraahdo sidii Venezuela kale kugu shaqaynaysaa laakiin waxaad moodaa hadda caddaymaha iyo waxyaalaha soo baxaya in aysan u muuqanin Mareykanku mid ku guulaysanay cabdixaafidow
saddex boqol iyo lixdan iyo saddex askari baa dhaawaca sida hadda la sheegay 13 waa dhimasho mid waa lala yahay hanti aad u badan waa burbudhay shalay ilaa shalay oo ugu dambeysay waxa weeyaan waxaa lasoo riday wax ka badan ilaa 3 diyaaradood diyaaraddaas lagu soo riday waddanka dhexdiisa 2 helicoptero kuwii goobahayeyna waa damage baa la gaarsiiyey dadkii la socdayna dhaawac baa gaaray mid kuwa maaragtay baalkayga diyaaradahan la yiraahdo muxuu ahaa eetanka na waa ayana gantaal baa lagu dhuftay waxay ku burburdhay waddanka kuwait waana lasoo badbaadiyay pilotka cabdixaafidow markii waxyaalahaasoo dhan adeedid waxaad moodaa Trump inuu meel uu uga baxana dagaalka ma garanayo meel uu kasii wadana ma garanayo mashaakilkaas faraha badan oo isbiirbiirsaday ayaa ku dhacay caawa wuxuu leeyahay haddaysan 48 hour aysan ku furinin iiraaniyiintu gacanka hormuus waxaan ku samayn doonaa waxaan horey loo arag wax hadda uu la haray oo hadda uu sheegi doonana ma jiraan haddii uusan nuclear ku dhufanaynin cabdixaafidow marka waxaad moodaa istiraatiijig ahaanna inuu u fashilmay taatig ahaanna ay u fashilmeen maraykanku marka waa loser waa wax walba waa khasaaro baa ku dhacday marka mashaakilka jira waxa weeye cadaadis baa wuxuu ka haystaa xagga waddanka gudihiisa iyo dee asagoon strategically wax objective ama danihii uu ka lahaa aan gaarin oo aysan gaari karaynin marka cadaadiskaasaa jira saasaa ka keenaysa qaylada waayahay waa u imaanaynaa warka weyn ee kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga caawa iyo hubka casriga ay isticmaaleen balse cadaadiska gudaha haddii aynu eegno dhinaca taageerada marka la eego xaggee ayay wax marayaan gudaha dalka maraykanka dadku see u arkaan 200 wasaaradda gaashaandhiggu cabdixaafidow boolalka ay qaadeen hadda for example CNN iyo SSR kuwa la yiraahdo SSRS oo qolyaha boolalka qaadaa sida hadda halkan ka muuqata waxay leeyihiin Trump wuxuu codsaday 200 bilyan oo dollar oo ah supplementary waxay dhahaan ama budgetkii hore waxaan ku jirin oo la rabo in lagu kabo mashaakilka socda waayo maalintii ugu yaraan bilyan ama 2 bilyan oo dollar oo qarash bay bixinayaan ilaa 3 bilyan oo dollar baa lagu qiyaasay daily in ay ka baxayso waddanka waayo hubka la isticmaalayo shidaalka magaciisiga howlgalka waxaasoo dhan markii la eego marka agabkao dhan marka la isu geeyo marka dadka maraykanka waxaa la weydiiyey ma taageeraysaan in 200 bilyan oo dollar la siiyo 70% wax ka badan baa ka hortimid dadka waxaa kaloo la weydiiyey cabdixaafidow in dagaalku inuu sii soconaya ay aaminsan yihiin oo ay likely tahay 63% baa waxay tiri waa u badan tahay waayo istiraatiijiyad macno lama leh 28 baa waxay tiri waxay u badan tahay inuusan sii soconin 9 ka mid ah waxay tiri ma hubno marka waxay ku tusinaysaa hadalkiisa meesha waxa ka soo baxay ujeedadu waxa weeye waxa uu dadka u sheegayo iyo waxa dadku ka aaminsan yihiin maraykanku way kala duwan yihiin dadka maraykanku waxay aaminsan yihiin dagaalkan Trump galay oo Iiraan lagu qaaday inuu sii socon doono markii la eego qiyaasaha iyo sida asagu maaragtay uu hawshan ku jiro marka arrintaas waa sida dhinaca kale asagu hadba sheeko keenayaa oo uu leeyahay waxaan qabsan doonaa jasiirado waxaan samayn doonaa sidaan waxaan samayn doonaa sidaan laakiin wax uu samaynayo malaha hadduu wax samayn karo dee hore u samayn lahaa cabdixaafidow sidoo kale markaynu eegno hadda meelaha waddamadan hadda meeshan ka dagaalamayo bariga dhexe ama golofka waxay ku tusinaysaa iyaga laftigooda haddii arrintan u dhacdo mashaakilka ku dhici kara hadda meesha picturekan ka muuqda meelaha ay biyaha ka sifaystaan 90% kuwait waxay ku tiirsan tahay biyo sifaynta Bahrain 90% bay ku tiirsan tahay Imaaraadku 40% bay ku tiirsan tahay Qatar 99% bay ku tiirsan tahay Oman 86% bay ku tiirsan tahay Saudi Arabia 7% marka waxay ku tusinaysaa meelahan waa dhul desert ah haddii biyuhu dhammaadaan ama biyaha la waayo waddanka ugu badan wuxuu haysan karaa baa la yiri biyo kayda uu haystaa 2 maalmood marka haddii biyaha la waayo dee mashaakilku waad dareemi karaysaa halka uu gaarayo wax kastoo nolosha waa istaagaya wax kastoo noloshana biyahay ku xiran yihiin marka cabdixaafidow dadkan dowladahan bariga dhexe degan oo maaragtay GCC
waddanka maraykanka investment aad u fara badan bay gashadeen haddii marka ay arrintaanu ay noloshoodu khatar gasho waxay u badan tahay inay joojin doonaan waxyaalaha maaragtay investmentiga ah oo ay maraykanka gashadeen oo $dhowr trilyan haddii arrintaas u dhacdana waxaa dhacaya inuu economic collapse maraykanka laftigiisa uu ku dhaco dhaqaalaha dhib weyn uu soo gaaro cabdixaafidow haddii hadda sida halkan ka muuqato picturekaynu arkaynay tahdiidka iyo hanjabaadda uu Trump muujinayo hadday wax tarayso ama 48 hour maalin hore wuxuu qabtay 48 hour maalin dambe wuxuu qabtay 10 bari hadda wuxuu maray yacni waxay ku tusinaysaa wixiisu inaysan ahayn wax isku aadan wax uu la harayna ma jiraan qoladan iiraaniyiintana waxay leeyihiin de soo soco waxaad haysid badka keen waa arki doonaa ma loo malaynayaa 48 saacan hadda uu qabtay cusub iyadoo 10 maalmood weli aysan dhammaanin oo dhowr maalmood ay ka dhiman yihiin horey uu qabtay fariin Iiraan ku socota inaysan ahayn ay tahay fariin gudaha Maraykanka ku socota iyo taageerayaashiisii maadaama sumcadiisii ama popularitigiisii ay hoos u socoto uu leeyahay bal caymo ma diido cabdixaafidow markaynu eegno taageerada waddanka maraykanka gudihiisa Donald Trump ku leeyahay wuxuu u dhacay 11 bointiba hoos u dhacay boqolkiiba hadda waxa weeyaan wuxuu marayaa 33 wuxuu marayaa meeshii Bush oo dagaalkii Ciraaq iyo dagaalkii Afghanistan qaaday markuu ka tagayay 2008 uu ka tagayay xilka oo Obama la wareegayay meesha uu marayay waana meel shii u gaaray baa la madaxweyne maraykanka soo mara halkii ugu liidatay asagoo xilka haya oo maanta xilka wuxuu hayaa 113 maalmood buu xilka hayaa therapykiisii labaad waxay ku tusinaysaa yacni waqti dheer uu dhiman yahay in ay uu guuldarro kala kulmay dhinaca maaragtay dadka maraykanka inuu ka dhaadhiciyo waxyaalaha shaqada uu qabanayo cabdixaafidow waxaad ku darsataa oo kale Trump waa la doortay dad buu accountable u yahay ama dad buu u yahay inuu u sheego waa shaqaale ay hayar garaysteen dadka maraykankuna waa dad aad u dulqaad badan laakiin marka ay arkaan qofku meel saxa inuusan ku wadinin waa dad aragtidooda iyo fikirkooda aad u fiican yahay markii loo eego wadamada dimuqraadiga oo aan u qarinin waxa uu maaragtay qofka hogaamiya wada samaynayo cabdixaafidow waxaad la socotaa waxaa soo dhow midtermkii labada aqal waxaa haysta hadda xisbigiisa aqalka hoose oo la yiraahdo House of Representatives ama Congresska loo yaqaano marginka u dhaxeeya waa waxaan ka badnayn 4 qof 5 qof aqalka senatkana waxaa u dhaxeeya 40 iyo waxa weeyaan 49 iyo 51 way kala yihiin marka aqalka hoose meelaha ay difaacayaan ama loo malaynayo in laga qaado cabdixaafidow waxa weeyaan 46 siid baa ay u badan tahay inay dhumiyaan senatka 21 baa tartamaysa 21kooda hadday dimuqraadigu 4 ka mid helaan ama 3 ka mid helaan majority bay helayaan waxaana dhici doonta marka cabdixaafidow in investigation yimaado in cabinetkiisa qayb la impeach gareeyo sida hadda ninkan jooga maaragtay defensiga hadduu sii joogaba hadda caawa waxaan arkayay New York Times article ay ka qordhay oo ay leeyihiin 4 ka mid golihiisa wasiirada wuu cayrin doonaa wiikan sidii wiigagii hore la soo dhaafay uu cayriyay gabadhii Homeland Security haysatay iyo midii Justice Department-ga haysatay waxaa la leeyahay wuxuu cayrin doonaa kan gaashaandhigga kan maaragtay laborka shaqaalaha midka maxaa la yidhaha ganacsiga iyo gabadha haysata sirdoonka oo dhan 17 hay-adood marka cabdixaafidow mashaakilka Trump haysta waxaa weeye cadaadis ayaa dadweynaha xaggiisa ka haysta marka nin daad qaatay xubno cuskay weeye adba sheeko ku sheekaynayaa sheekadaasna dee practically waxa ka socda meesha dagaalku ka socdo waxba kama taro aflagaadada iyo cayda iyo ninbaa nin ku yiri bay dhaheen bali hebel waa ku xamanaya suyo markii horeba dee col baan ahayn moogta heshiis maanaan ahayn marka waa meeshii ay ka dhigi jireen soomaalidu moogtahay nina ciid ku tuudhay ama candhuufo ku tuftay colaadna wax kama tadho nabaadana waa sii fogaysaa aflagaadada iyo magaciisiga iyo waxyaalahaas waxba uma tarayaan cabdixaafid waxayna ku tusinaysaa dee inuusan qof mas-uula oo maaragtay wax kala garanaya uusan ahayn cabdixaafida waxaa jira quotation wisdom oo ay dhihi jireen moogtahay don't insult your opponent qofka kaa soo horjeeda lama caayo baan moogtahay ama fikir isku haya ama xukun isku haya haddaad caydid
macnaheedu waxay noqonaysaa moogtahay nabadgelyadiina waxba kama tarayso waayahay colaadiina way sii fogeynaysaa aad iyo aad dayiba waxaan la soconaa wasaaradda gaashaandhigga khaatum alambiya warka caawa ka soo baxay ee dalka iiraan waxay sheegeen labada diyaaradood soo rideen 24 saac ka hor inay u isticmaaleen hub casri ah oo aan horey noociisa loo arkin waa si hadalka u dhigtay u dhigeen isla mar ahaantaasna waxa iiraan u qarsoon cid og haba yaraatee ma jirta ayuu leeyahay afhayeenka militariga iiraan halkan ruushka iyo shiinahaba farta ayaa lagu gudayaa inkastoo isagu uu yiri hubkan annaga ayaa samaysanay laakiin shiinaha iyo ruushka waxaa leeyahay arrintan waa dhex taagan yihiin qayb weyn ayay ka yihiin maxaynu kala soconaa warkan fariin intee leeg ayuu dirayaa iiraanba waxay haysataa hub casri ah oo kii lagu ogaa ka duwan mise waa booto mise ruushka iyo shiinuhuna garabaysiiyeen iiraana meel bay ka soo baxday xaalkuwaase cabdixaafido horta hal aynu la soconno waa sidaynu markii hore u sheegayna waxaa jira unknown waxaynaan aqoonin aynaan aqoonin waxay ku tusinaysaa marka mar kastoo waddanka mushkila ku dhacdo ama bini aadanka sii sababa ilaahay abuuray haddii xataa jirkaaga meel ka mida uu nabar gaaro marka hore qofku uu dhiig baxaa marka dambena waxa weeyaan waxaa yimaada wixii awshii lala dacaro ama si najaraala jirku uu u sameeyo xinjiro oo dhiigki joojiyo wadamadu markii dagaalku ka dhacana waa sidaas oo kale maraykanku wuxuu industrial noqday oo maxaa la yiraahdaa adduunka uu wadamada industrialka ugu badan uu noqday wixii ka dambeeyay dagaalkii koobaad dagaalada marka waa laga faa'iidaa waana lagu khasaaraa boqortooyooyinkuna way ku dumaan wadamada soo kacayana way ku guulaysaan haddii maaragtay si istaraatiijiga ay u maareeyaan arrintaa marka waa arrintaas middan oo iiraaniyiintu ay sheegeen oo ay leeyihiin hub casri aan isticmaalay waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambaysa inay samaynayaan improvement ama maaragtay korokicid xaggoo maaragtay ama ha noqoto istaraatiijiyadda ama ha noqoto hubka ay haystaan ama ha noqoto maaragtay sida way fahanka ay fahmayaan shaxdu siday u socoto iyo siday maaragtay maraykanka ula dhiilgaraynayaan waxay kaloo ku tusaysaa cabdixaafidow maraykanku wixii uu sheegayey oo ahaa iiraan waxaanu burburinay raadaaradeedii waxaan burburinay maaragtay air defensegeedii waxbaynaysan ka jirinin oo guuldarro bay ku tahay dhinaca kalena cabdixaafidow dagaalku sidiisa waxyaalaha qaybta ka ah waxaa ka mid ah psychological warka sida qofka kaa soo horjeeda aad maskaxdiisa aad ugu fudhid moog tahay aad saamaynta ugu yeelatid marka iiraan mar kasta oo ay maaragtay dagaalku sii socdo waxay samaynaysaa horumar mid istaraatiijiyadeed iyo mid taatig labadaba cabdixaafidow 17 hay-adood oo la yaqaano maraykanka oo sirdoonka assessmentigii ugu dambeeyo ay sameeyeen shalayto waxay yidhaahdeen iiraan waxay haysataa hubkeedii 50% bahalada loonjarada la yidhaahdo oo gantaalaha laga rido 50% bay haysataa bay dhaheen iyaga waa qiyaastooda weli waa unknown waa qiyaastuna sax bay noqon kartaa moogtahay muhaal iyo dhaan dabangaalana waa noqon kartaa sidoo kale waxay yidhaahdeen cabdixaafidow ilaa maalintii dagaalku bilowday ilaa hadda si istaraatiijiga ay u fakarayaan iiraaniyiintu maalintii waxay soo tuurayaan 50 gantaalaha plastic misailka iyo 200 oo daroon ah oo ay u qaybinayaan meelaha ay rabaan hadda israa'iil oo kale daily waxaa ku dhacda 20 gantaal oo kuwa plastiga waxayna ku tusinaysaa cabdixaafidow waxay samaynayaan si maskax iyo istaraatiijiyadu ku jiro taatiga markii hore waxay isticmaalayaan wax la yidhaahdo decoyga waxa weeye gantaalo ool ah oo qoladan gantaalaha difaaca oo ay haysato sakt gareeya ama markii ay soo tuuraan 1 xabo 5 6 7 xabo 8 xabo bay kusoo tuurayaan qoryaha oo tiiba ay tahay ugu yaraan $4 milyan waxay ku tusinaysaa marka ay kan halka xabo soo tuuraan halka xabana ay isku dayaan inay ku celiyaan 20 gantaalaha difaaca ee waddanka ayaa dhammaanaya hoos u dhacaya maadaama hoos u dhacayaan ayagana kuwooda casriga ah oo ay ridayaan waxay ku dhacayaan meelihii ay ugu talagaleen marka nimanka waxay isticmaaleen iiraaniyiintu taatig aad iyo aad cajiib u ah oo asymmetric waxa weeye maadaama aana convention ahaan aana kaa hor imaan karin toos inaan si taatiga kuula ciyaaro marka waxaad moodaa hadda cabdixaafido waxaad fiirsaa bigjaradii ugu dambeeyey oo israa'iil Tel Aviv iyo Haifa iyo magaalooyinkooda
wax hadda ka hortagaya gantaalahooda male waayo bahladii way dhammaadeen marka haddeer waxay bilaabayaan hadalkan ay bilaabayaan ay leeyihiin waxaan samaynay qalab casri aan soo saaray waxay ku tusinaysaa si maskixiyana inay rabaan inay saamayn ugu yeeshaan cabdixaafid waxaad kaloo ku darsataa ruushka iyo jaynuhu sidaan horeyba uga sheekaynay waa labada wadan oo midna tactic ahaan buu uga faa'iidaya midna istaraatiijig ahaan buu uga faa'iidaya ruushku ma ahan hadda inuu adduunyada qabsado raja'a kuma jiro oo empire noqdo waayo markii loo eego dadkiisoo waaweynaanaya dhulka uu degan yaho weyn yahay dhaqaalihiisoon aad u koraynin waxyaalahaasoo dhan markii la eego laakiin wuxuu rabaa geographical locationka ama meelaha asaga uu degan yahay iyo meelaha ka agdhow saamaynta badan ugu badan inuu ku yeesho cidna aysan u soo dhowaanin ukraine oo kale uu qabsado inta badan dhulka uu rabo Poland oo kale uu saamayn ku yeesho Eastern Europe oo kale maaragtay aysan rabsho ku haynin China laakiin waa wadanka istaraatiijig ahaan uga faa'iidayo global dominantiga noqonaya cabdixaafid oo marka dadka historianka iyo dadka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa iyo economistu midba il buu ku eegaa markuu cabirayo economistu wuxuu eegaa qiyaasta maxaa la yiraahdaa qiyaasta wuxuu eegaa moogta dhaqaalaha koritaankiisa iyo sida uu u shaqaynayo historianku laakiin wuxuu eegaa taariikhda buu eegaa moogta iyo siday u shaqaynaysa iyo maxaa la soo maray marka labadoodaba haddii aad qiimeyn ku samaysid waxaad moodaa inay si mugla uga faa'iidaysanayaan waxaa la yirahdaa China iyo Ruushka aad iyo aad u wanaagsan dayba maasantay adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig